shuruucdu markay soo gaaraan marxaladan saddexaad waxaynu ansixinaynaa runtii waa sharcigii oo final way oo gabagaba oo ah inuu dhammaystiran yahay waxaan ansixinaynaana waa sharciga oo dhammaystiran oo qodobaysan kow ilaa dhammaad inuu muxuu ahaayey sharcigii oo lagu soo daray wax alla wixii markaa comment ah ama wax ka bedel ahaa tama waa la soo raacin karaa warqadan hadda shaxda ah waa la soo raacin karaa laakiin inuu golahan waxa ka tegayaa uu noqdo inuu xaraf xaraf loo akhriyo qodob qodob loo akhriyo waxa mugtay golahani ka gudbaya golaha kale oo gudbayay inuu noqdo sharcigii oo dhammaystiran oo muxuu ahay sidii sharci oo final u qoran inuu noqdo ayay ku qurux badan tahay marar badan baa waxa soo baxda inay isweydaar ku dhacaan waxaynu gudbinay iyo waxaynu halkan ka ansixinay qofku markaa ma refer garayn karo wixii golahan ku ansixinay muxuu ahaa horta noocuu ahaa markuu finalkiisii u arko aad bay ugu adkaanaysaa inuu sharcigii markaa dib u raaco yidhaahdo sharcigii golaha ka gudbay noocan u ahaa marka anu waxaa odhan lahaa mudane guddoomiye markaynu akhrista saddexaad aynu gaadhno waxaa habboon sida dhaqanku ahaan jiray in muxuu ahaayey sharciga oo dhammaystiran golaha la hor keeno shaxda wax ka beddelkaana la keeno qofku uu soo akhriyay sharciga oo markaa muxuu ahaayey buuxa oo markaasi final taagan sida golaha sareba markay soo gudbinayaan ay dib inoogu soo gudbinayaan isagoo macal lambarkii iyo muxuu ahaayey wax oo dhan ay ku qorantay wax ka maqani jirin ayay markaasi inoo soo gudbiyaan marka si aanay isdhaafdhaaf had iyo jeer u dhicin aynu muxuu ahaayey gudbino sharci dhammaystiran waa mahadsantihiin waa iga talo